qorshahaas wuxuu u galay mad akhay nin liiraahdo Mustaf mid liiraahdo oo ganacsatada kala Soomaaliyeed iska ah oo iska xamaashan in loo dilo Cabdiwahaab kuwaas daraadooda loo dilo waxaa lagu dilay magaalada Baydhabo gaar ahaan ka soo horjeedka gurigiisa hortii mudane gudoomiye garsoor maxkamad sharafta leh eedeysanaha iyo shanta kale ee maqanayaasha ah waxay ku mideysnaayeen dilka marxuum Cabdiwahaab Allah naxariiste waa dil fool xun oo arxan daran oo la soo agaasimay qof maskiin ah oo reer magaalada ah oo iska ganacsada oo noloshiisa gaarka iska wata inay dilaan ay ku heshiiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhagartii shalay ay geesteen mid la mid ah ayuu maxkamadda horteed u fadhiyaa wax uu ku dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo yiri walaa yahiqul makru sayyi illa bi ahli dhagartii shalay uu maleegay maanta asaa meesha u fadhiyo wuxuu ku andacooday eedeysanaha oo maxkamadda hor fadhiyo wuxuu ku andacooday inuu san waxba dilin dilkaas intuu san dhicin wuxuu fursado iyo jaanis u haystay inuu laamaha amni la wadaago uu sheego maxkamadda markay wareysineysay warkiisa uu horreeyay ka bilaabo waxay ahayd 14 bari ka hor waxaa la ii sheegay in hool la qaban rabo cid loo soo diray inay jirto oo uu la kaashanayo cidaasna uu wax la qabanayo intaba waa heshiis inkastoo had maxkamadda uusan u cadaynin qiraalkiisna uusan ku cadaynin waxa cad heshiis ah inuu dhacay uu ogaa cala bidaar iyo mad sheekh inay soo agaasimeen loo soo diray Cabdi Faadil iyo cali mad sheekh lagu soo diray magaalada Baydhabo meel u jirto 60 kilomitir iyo meel ka shisho ka fog loo soo diray wuxuu eedeysana maxkamadda hor fadhiya wuxuu kamid yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta ururku wuxuu ka tirsan yahay 46 guutada 8aad uu ka tirsan asigoo ciidanka ka tirsan oo lacagtiisa mushaarkiisa qaadanayo wuxuu fursad kale u haystay inuu company magaalada ku yaal ka shaqeeyo lacag kale ka qaato marka ma jirin wax ku qasbayo inuu dilkan nolol kale ka raadiyo wax ku qasbayo kale ma jirin waxa laga dhaadhicay arrin qabiil oo ma aragtay oo qabaa'ilada Soomaaliyeed ka dhaxaysay oo waliba gaar ahaan leysan ka dhaxaysa laga dhaadhicay qorshahaas wuxuu u galay mad akhay nin liiraahdo Mustaf mid liiraahdo oo ganacsatada kala Soomaaliyeed iska ah oo iska xamaashan in loo dilo Cabdiwahaab kuwaas daraadooda loo dilo qofka muslimka ah sida diinta ina fariiso dilkiisa xaraam qadcan waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabku ku sheegay waxay geesteen mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh maadaama ay ku caddahay waxa ay geesteen uu sheegay maxkamadda horteed ku sheegay si qiraal ah uu cadeey garsoor markii uu qiraalka uu ka qoray ku cadeey maanta maxkamadda uu saareen oo uu cadeystay qaybtan uu ka laha uuna ogaa in la dilaayo nin naftiis bari ay tahay oo aan dambi galan in la dilo xaraam ay tahay soo og uu galay saas daraadeed mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan codsanaynaa in lagu ciqaabo ciqaabtii ay dandansiyeen marxuum Cabdiwahaab Allah naxariiste in lagu qaado oo aan loo naxariisinin loona eego aayadda 128 suuratu al-Baqara iyo qodobbada ku xusan maxkamadan ay ku xukunto xukun waafaqsan shariicada islaamka maxkamaddu way maasantay